aad iyo aad ay u mahadsantihiin saad noo gaarsiiseen 260 subscribe inka yar 3 xisho muuqaalkii hore waxa idinku weydiinay maxaa ka soo hadalaa muuqaalka kan xiga waxa ugu badnaa ee komentiyada ku soo noqnoqonayay waa sida cod fasiixa loo duubo waxa jira youtuber ka soo hadlay sida cod fasiixa loo duubo laakiin waxa idinka qariyeen sirtii ugu muhiimsaneed ee codkaaga ka dhigaysay fasiix ku soo dhawo Somali Editor ugu soo biir waxaad naga faa'iidi doontaa waxyaabaha fara badan dhalinyartu marka ay bilow yihiin waxay isweydiiyaan sidaad ku duubi kartaa cod fasiix ah waxayna sugaan intay helayaan mikrofon qaali ah halkaana waxa kaga luma waqtigooda haddaba muuqaalkeena waxaan ku arki doonaa 6 qodob oo ka dhigaya codkaaga fasiix qodobka ugu dambeeyana waa ka ugu muhiimsan qodobka koowaad maxaan ku duubaa codka markaad duubayso codka waxaad u baahan tahay inaad ku duubto moobilkaaga haddaanad haysan mikrofon waxaa jira mikrofoon aad u jaban oo aad adeegsan karto sida kan hadda adeegsanayo kale waxaan adeegsanayaa mikrofoonka loo yaqaano Boya M1 oo qiimihiisu yahay $13 oo kaliya marka aad doonayso inaad ku duubto moobilkaaga oo aad haysan mikrofon waxaad soo qaadataa sharabaad ama buush oo dhaxkali sameecada moobilkaaga si ay ugu noqoto pop filter ayna ka qabato neefta badan ee ka soo baxaysa afkaaga waa inay noqotaa masaafada idin dhaxaysa adiga iyo moobilkaagu 1 ilaa 2 inch adeegsa application-ka recording-ka ee moobilkaagu ku soo dego waxa uu ku siinayaa cod quality sareeya qodobka labaad halkeen ku duuba codka qofku marka uu bilow yahay oo uu cod duubis yiraahdo waxa uu is oranayaa codkaagu furxuma isagoo oo ku duubaya suuq dhaxdii ama meel buuq leh waxa looga baahan yahay inuu qofku ku duubo meel degan oo aan shanqar lahayn ana ku duubin qol maran waayo codka ayaa dib kugu soo noqonaya waana uu ka kharimayaa haddaba saan u xaliya codka soo laabanaya qolka dhaxdhig dhar ama alaabo si uuna codku dib kugu soo noqon iska xidh albaabada iyo daanqadaha sayna hawo badan qolka soo galin qodobka saddexaad qaabkeen u duuba codka markaad qabatid waxyaabahan soo sheegay soo qaado scriptigaaga una soo qor point iyo tusaale ahaan point 1 point 2 iyo point 3 iyo point 4 point kasta u dhaxaysii waxoogaa yar oo break ah yaranaso biyana cab haddana u gudub pointiga labaad ilaa aad ka dhameynaysid pointiyadaada hadduu codkaaga adoo fadhiya waayo codkaaga ma control karaysid waxaana uu ku sababaya inuu khaladaad ka dhaco laakiin duub adigoo istaagsan waayo codkaagu waxa uu ku noqonaya mid aad control karaysid si fiican aad u neefsan karaysid markaad duubayso codkaaga hada dajin oo ha israaraacin hadalkaaga hana gaabin oo ayar ha ka dhigin tusaale ahaan kusoo dhawo Somali Editor nagu soo biir waxaad naga faa'iidi doontaa waxyaabo aad u fara badan ama kusoo dhawo Somali Editor nagu soo biir waxaad naga faa'iidi doontaa waxyaabo aad u fara badan haddaad u akhri degdeg ama ayar dadka codkaagu way ku daalayaan ee u akhri si caadi ah deganaashan ay ka muuqato qodobka afaraad waqtigeen duuba codka waqtiga ugu fiican ee codka la duubi karaa waa 2 waqti oo kaliya aroortii intayna dadku soo kicin iyo habeenkii markay dadku seexdaan haddaad duubtid waqtiyada ay dadku soo jeedaan codkaaga ma noqonayo mid fasiix ah waxa laga dhex maqlaya shooca ama dadka dhex qariyaya waxaan soo gaarnay qodobkii ugu dambeeyay ee ugu muhiimsanaa si aan codka ku edgareeya editka codku waxa uu qaybsamaa 2 qaybood in la jarjaro codkaagii oo laga dhex saaro qaladaadkii ka dhacay markaad duubaysid iyo in codka laga saaro noise background-ka ama shooca soo noqdo mid professional ah intaba waxa ku qabanaya hal application oo loo yaqaano Luxus Audio Editor waxaad kala degi doontaa description-ka ama comment-iga ugu horeeya bal isla eegno application-kii markaad soo gashid waxaad halka ku dhufanaysaa meesha ugu horeysa ee ah open markaad ku dhufatid waxaad dooranaysaa faylkii aad ku soo save garaysatay codkaagii oo ku dhufo open dhe waxa ugu horeeyay editing-ka saan hore u soo sheegnay waa jarjaritaan haddaba si aan ku jarjarnaa codka waxaad soo jiidaysaa xariijinta dheer aan fallaadho ku saari doono waxaad keenaysaa meesha uu ka bilaabo codka khaladka ah haddana waxaad keenaysaa xariijinta kale waxaad keen doontaa meesha uu ku dhamaado codka khaladka ah kadibna waxaad ku dhufan doontaa 3 dhibcood waxaad odhan doontaa cut sidaa waxa kaaga baxay codkii khaladka ahaa ee aanad rabin inuu ka soo dhex muuqdo muuqaalkaaga haddaba si aan codka u edit gareyn karaa oo nuga saara noise background waxaad soo furanaysaa 3 dhibcood kadibna waxaad kusii dhufanaysaa effects waxaad kasii degi doontaa meeshay ku qoran tahay noise reduction waxaad isticmaali doontaa setting-kan hadda aan isticmaalayo kadibna waxaad odhan doontaa apply effects-ka ayaa dib ugu noqon doontaa oo waxaad kasii dooran doontaa meeshay ku qoran tahay amplifier-kan waxaad isticmaali doontaa setting-kan aanu hadda isticmaalayo kadibna waxaad odhan doontaa apply dib waxaad ugu noqon doontaa effects-kii waxaadna kasii dooran doontaa normalize marka intaa samaysid codkaagii waa save garaysanaysaa codkaagii markaad soo save garaysatid waxaan tegi doonaa barnaamijka loo yaqaano Adobe Podcast markaan saa u soo furano waxaan kasii dooranaynaa loogada yar ee mikrofoonka soo saaran yahay kadibna waxaan kasii dhufanaynaa go waxaad dooran doontaa faylkii aan soo save garaysanay kadib waad soo gelin doonaa faylkii codka ahaa markaan codka soo gelino in yar ayaan sugi doonaa soo inoogu qabto hawsheenii kadibna saa ayuu inoogu edit garan doonaa bal hasla eegno codkii hore bila editing-ka ahaa iyo codkan hadda aan soo edit garaynay
kusoo dhawaada Somali Auditor nagu soo biir waxaad naga faa'iidi doontaa waxyaabo aad u fara badan kusoo dhawaada Somali Auditor nagu soo biir waxaad naga faa'iidi doontaa waxyaabo aad u fara badan aad u maasan tahay hadda halka soo gaadhay fadlan naga ilaawin subscribe-tiya like-ta muuqaalkeena xigana maxaan ka soo sameynaa assalaamu calaykum